kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku falanqeyn doono haddii rabi qadaro xaalada dalkaasi Itoobiya gaar ahaan magacaabista ra'iisul wasaare ku sheega dhawaan ay kooxda EBRDF u igmatay in uu gudoomiye u noqdo kaasi oo maalinimadii isniintana loo dhaariyay xilka ra'iisul wasaarenimada ee maamulka wayanaha barnaamijka waxa inoo falanqeyn doona haddii uusan rabi ma aha dhihin oo aanu wareysan doonaa maxamed xuseen oo ah xeeldheere dhinaca militariga iyo istaraatiijiyadda ah ku soo dhow ilays TV waa tahay haddaba inta ayna barnaamijka gudagelin bal warbixin kooban aanu dulmare dalkaasi Itoobiya waxa 3 sano ee ugu dambeysay ka soo taagnaa dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu cuslaayeen kacdoonka qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada kacdoonkaasi waxa uu horseeday in uu iscasilo ra'iisul wasaare ku sheegay maqaarsaarka ahaa ee maamulka wayanaha waxaana maalinimadii isniinta ahayd loo dhaariyay xilka ra'iisul wasaarenimada shakhsiga bedelaya oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada kaasi oo lagu magacaabo Abiy Ahmed oo isagu haatan la sugayo in uu la wareego guud ahaanba hoggaanka dalkaasi Itoobiya sidoo kale waxa uu noqonayaa sharciyan marka la fiiriyo nidaamka dalkaasi Itoobiya taliyaha guud ee ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada amniga iyo waliba kuwa nabad sugidda ra'iisul wasaare ku sheegay hore ee maamulka wayanaha caqabadaha iyo dhibaatooyinkii uu la kulmay waxa safka hore kaga jiray in saraakiisha kooxda TPLF gabi ahaanba ay meesha ka saareen in uu qabto amaba uu noqdo taliyaha guud ee ciidamada arrintaasina waxa ay keentay kala daadsanaan iyo waliba kala shaki ku yimaada hay'adihii kala duwanaa ee maamulka wayanaha oo uu ugu horeeyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha iyo waliba taliyayaasha ciidamada kuwaasi oo ay saraakiisha Tigreegu gacanta ku hayeen su'aalaha isweydiinta mudan ayaa waxa ay yihiin kan haatan bedelay Haile Mariam Desalegn iscasilay isagu ma noqon doona mid ka duwanaada Haile Mariam Desalegn oo awoodda rasmiga ah ee dalkaasi Itoobiya ay gacanta u gasho mise sidii Haile Mariam Desalegn ayaa uu noqon doona qodobadaasi iyo qodobo kale ayaynu barnaamijkeena ku falanqeynaynaa waxaanan haatan ku noqonayaa maxamed xuseen oo aan jecelahay bal ugu horeyn in aan weydiiyo sida aynu wada ogsoonahay maalinimadii isniinta waxa loo dhaariyay talada dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed oo bedelaya Haile Mariam Desalegn sida aan horeyba u soo sheegnay haddaba aqoonta aad u leedahay military ahaan marka la fiiriyo xaaladaha isbedbedelaya ee Itoobiya oo saraakiisha ciidamadu ay gacanta ku hayaan talada Itoobiya maxaad isleedahay uu kaga duwanaan karaa Abiy ninkii dhihi jiray Haile Mariam horta marka hore waad mahadsantihiin dhammaan bahda ilays oo mahad celinaya sidoo kale anoo chance ka faa'iideysanaya waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inta kadib su'aashaadii weydiisay waan guda galaya Abiy Ahmed horta muxuu kaga duwanaan doonaa intaanan falanqeynin waxaan jecelahay horta waa kuma Abiy Ahmed Abiy Ahmed waa nin kulay da'yar oo aqoon-yahana oo sidoo kale la soo shaqeeyay militariga qaybta sirdoonka Itoobiya darajo fiican ka gaaray bariyihii dambana isfahan la'aan darteed oo muxuu ay isugu dhaceen kooxdan TPLF iyo isaga darteed ayaa kala wareejiyay taas ayaana muxuu ahay sababtay in uu ku biiro kacdoon wadayaasha muddadii u dambeysay marka kacdoon wadayaasha ayuu kamid ahaa Abiy Ahmed sad la socoteenba marka Abiy Ahmed qaabkan hadda uu ku yimid waa qaab kadis ah oo aan lagu talagelin muxuu ahaa xitaa kooxdan TPLF xilka sii haysay aysan xitaa ku talagelin waa sidaad ka maqlaysay hadalkii gudoomiyaha xisbiga TPLF uu ku hadlayo lahaa waana la siri dabcan hadalkiisa ba kamid ahaa marka taa waxa ku cadeynaysaa inaysan TPLF iyo barnaamijkooda uusan diyaar oo iyagu aysan u diyaar garoobin inuu ninkani meesha yimaado oo noqdo ra'iisul wasaare wuu yimid meeshii wuu yimid oo ra'iisul wasaarihi wuu noqday laakiin muxuu kaga bedelaan doonaa ra'iisul wasaare hore meesha ka tagayba meesha taala runtii laba caqabadood baa meesha jirta caqabad waa mid guud ay dadku ay ka hadlayaan ee ah xisbigan kala qaybsan ee isaaminila muxuu ahaa inuu soo xallin kara soo la shaqeyn kara waxa soo dhan ma jiro laakiin muhiimadu waxa weeye TPLF ma aysan rabin inuu yimaado Abiy Ahmed tusaalaan xalay waxa jiray casho sharaf la qabtay
kama aysan qayb gelin kooxda TPLF iyo ninka muxuu ahaa madaxweynaha kelilka ha kama aysan qayb gelin way waa isku xisbi iyagu kama aysan qayb gelin si la sheegayo yani marka waxay ku cadeynaysaa isfahan la'aanta kadiska iyo sida qaabkan uu ku yimid in ay jirto marka rabitaankan shacabkan dalbanaya ninka leeyahay Abiy Ahmed oo meeshii uu ku yimid iyo muxuu ahay talagal la'aanta ay Tigray macna waa wax kala fog dabcan inta uu buuxinayo baahida muxuu ahaa shacabkan soo dalbaday isagu uu kamid ahaa baahidoodu inuu xalliyo deegaanka ma heli doono dabcan ra'iisul wasaare qalalan hadii uu meesha ku joogo oo uusan helin xilka taliyaha ciidanka guud ee muxuu Itoobiya waa kan kay u shakaliya la isku haysto weeyaan dadka maarta lagu xayo taana inuusan helaynin baan anigu yaan iyo u muuqataa ma jirto way markaan qiimeeyo hadalka gudoomiyaha TPLF tan kale jirto waxa weeye dhibka labaad waxa weeyaan Abiy Ahmed shakhsiyadiisu waa nin ku soo koray nidaam qallafsan oo adayga ku soo barbaaray marka sidaa darteed waa nin adag oo qallafsan isqallaf la'aanta marka wuxuu si aaminsan yahay hadana inuu yahay nin ku yimid meesha xoog oo dad shacaba oo kacdoona ay keensadeen meesha taana marka waxay sii fogeyn doontaa marka kooxdan TPLF ee hadda xooga wadanka haysata macnaha ay shahankooda ayaa sii fogaan doona saasan anu qaba kaamirada la soo kaamirada waa tahay marka aynu dhinaca kalena fiirino Abiy Ahmed waxa uu ahaan jiray saraakiishii ciidamada gumaysiga Itoobiya waliba qaybtii wardoonka militariga ayuu kamid ahaa saraakiishan haatan xilka hayana dabcan way isla soo shaqeeyeen ma isleedahay isfaham baa dhex mari doona oo heerkii ay kala joogeen Xaylan Maryan iyo saraakiisha ciidamada Tigreegu heer ka duwan bay xaaladdu isu bedeli doontaa oo wada shaqeyn bay yeelan doonaan ma waan ku hormariyay waxaan aaminsanahay inaysan jiri doonin dabcan sababtoo ah kooxdan uu la soo shaqeeyay isagu haddana sida kadiska ah meesha uu isagu daaqada ugu soo galay ma dhici doonto inay isfahmaan ay wada shaqeeyaan wax dhici doona maaha Abiy Ahmed wuxuu la kulmi doonaa nidaamkii uu la kulmay ninka la dhigi jiray ra'iisul wasaarihii ka horeeyay Xaylan Maryan Dizale nidaamkaas kadib madax adeegii iyo nidaamkii uu ku soo koray iyo qabka hadda uu aaminsan yahay ee meesha inuu ku yimid inuu markuu waayo waxay noqon doontaa in khilaafka uu sii xoog bato oo muxuu ahay mudaharaadadii iyo nidaamkii ay hadda dib u soo cusboonaadaan marka taas baa iman doonta laakiin ma filayo inay isfahmi doonaan waxa uu ku yimid ninka la yiraahdo Abiy Ahmed sida adigu horeyba aad ka shanqarisay qorshe kacdoonkii qoomiyadda oromada uu dabada ka riixay EPRDF buu ku khasbay in la keeno shakhsi umadaasi yani dejin kara xaaladooda suuragal ma tahay shacabka qoomiyadda oromada iyagu waxa ay diidanayeen ma ahayn shakhsi waxa ay diidanayeen gabi ahaanba nidaamka ama haykalka kooxda EPRDF mar hadii EPRDF ay keentay iyada oo doonaysa in ay ku garaacdo qoomiyadii oromada suuragal ma tahay in arintaasi looga faa'iideysto bulshada oromada oo ay xaaladda dejiyaan wax jira kooxdan TPLF in badan way isku dayday inay la timaado nidaam ka dejin kara dabcan kacdoonadan hadda waliba siiba oromada kaga yimid runtii dhowr marxaladood hore isku dayeen sida aan la socono way ku guul dareysteen balse tii u dambeysay waxay ahayd in xitaa aysan ka dhigin ra'iisul wasaare qowmiyadan oromada ka soo jeeda balse ay wateen nin la yiraahdo amxaara oo qowmiyadan amxaarada ka soo jeeda oo ilaahana iyaga isu dhow yihiin mar walbaba fikirka ku aadan muxuu ah ra'iisul wasaaraha waxa weeyaan in uu yimaado qof iyagu muxuu ah ay u yeernayaan ay u fadhiyaan daaqada dambe sidii Xaylan Maryan ku dhacday oo la shaqeyn waayo kale Abiy marka wuxuu ku yimid nidaam kadis ah sida ay sheegayaan laftooda saraakiishooda qayb kamid ah hadiise uu yimid marka waaba ku cadaaday dabcan marka waxay noqon doontaa usha la isku garaacay ah taliyaha ciidamada meesha waxa weeye wax la isku haysto waa ciidankii marka inay ka ilaaliyaan hadii ay waayaan marka qof u carbisma oo iyagu muxuu tahay oromada ay ku dajiyaan oromo sida hadda ay sheeganayaan ma doonayaan shakhsi maqaar saara oo iska hortaagan oo magacuyaal ah ma doonayaan marka waxay rabaan Abiy Ahmed way ku qanacsan yihiin hadda laakiin Abiy Ahmed isna kuma sii qanci doono kooxdan inay u yeedhiso oo sii daba fariisato sida daraadeed marka marnaba ma filayo laba arrimood dartood macnaha uma suuragali doonto Abiy Ahmed oo ah nin nidaam ku soo koray adag oo nin ciidan waliba laanta ciidanka ka soo shaqeeyay oo iyagu ay soo tababareen macnaha inay daba fariistaan oo yeeriyaan saayeel ma bakari karaan sababtoo dabeecadda muxuu adayga uu ku soo koray baa keenaysa tan labaad waxa weeye
dad kacdoona oo Oromo keensaday ninkan meesha marka sidaa daraadeed rabitaankooda waxa weeye waa in ay Tigray awoodooda intay dhimaan oo muxuu ahay heerka afaraad la gaarsiiyo qoomiyadaha Itoobiya halka ay tagaan oo awood walbaba ay ka noqdaan waxa iyagu marka ka taagan qoomiyadahan inay ka helaan labada arrimood marka darteed uu sameyn karin Abay Ahmed ayaana u suuragelin muxuu inay isfahmaan waan gartay sida aad ka shanqarisayba kooxda TPLF ee iyadu talada dalkaasi Itoobiya gacanta ku haysa kuma aanay qancin ninka la yiraahdo Abay Ahmed sida aynu wada ogsoonahayna waxa ay qabteen maalin kadib markii lagu dhawaaqay in Abay Ahmed uu yahay gudoomiyaha EPRDF shir ay ku qabteen magaalada Maqle oo ay ugu magac dareen shirka nabadda marka la isku fiiriyo ku qanac la'aantooda iyo shirkaas iyo qorshayaasha istiraatiijiyadeed ee waqtiga dheer u degan kooxda TPLF maxaad isleedahay way ku wada shaqeyn karaan suuragalse ma tahay in haatan nidaamka dawliga ah uu dib ugu soo noqdo hanaankii caadiga ah waxaan qabaa horta xaaladu ay tahayba oo dabeecadda hadda lagu yaqaano oo kooxdan inta badan wadanka haysatay dabeecadoodii dhaqankooda iyo rabitaankooda markaan fiirino in wadanka xaaladiisu marka waan ku soo kala qaaday laba qodob mid waxa weeye xisbigiiba isfahmilo is-aamin laan ba jirta kow in xisbigii horta la is-aaminaysiyo oo hal hoggaan ay wada yeeshaan oo nidaamka ku heshiyaan horta suuragal uma aha dibka kale ee labaad waxa weeye shacabkii iyaga kacay waxbay diidan yihiin wixii ay diidan yihiin meesha ma ka bixi doonaa mise kama bixi doona iyadana waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee meesha yaala wuxuu yahay Abay Ahmed oo la garanayo ninka noocaas ah ay hore isu soo diideen maantana isu arkanin xoog ku yihiin meesha ah ma la shaqeyn doona maya waa saddex dhibaato oo waaweyn weeyaan marka tan kale ee meesha taala waxa weeye Tigreegii oo si kadisa ninkani ku soo galay oo meesha ku yimid sababtoo xilligii doorashada markii meesha la fariistay ninkii ay wateen baa yiri anigu waan iscasilay sida darteed buu marka Abay iyo ku yimid iyagana sida ay sheeganayaan in barnaamijka lagu qaa'imay oo lagu siray oo iyo waxay isla markii isku dayeen inay xataa barnaamijkii doorashada dib u dhigaan way suuragal weeyeen marka sida daraadeed saddexda marxaladood oo kala duwan aawadeed horta uma noqon doono mid xal laga gaaro khilaafkan hadda siyaasadeed Itoobiya ka jira balse waxaan filayaa wixii ka dambeeyo dhowr bilood kadib inay xaalada ka sii dari doonto waxaan hadda ogahay habeen xalay waxa la sheegay in ciidamada cirka diyaaradaha dhan ay ka qaaday magaalada Addis Ababa oo la geeyay muxuu ahaay Maqale sidoo kale kulankii cashada ahaa ee xalay isaguna inaysan ka qayb gelin kooxda TPLF marka labada qodob ugu horeysay aad aragtaba waxay ku muujinaysaa waxa dambe ee soo ay noqon doonto xaaladdu waxay noqon doontaa ninkan wuxuu rabaa in uu barnaamijka sidii xoog gala Tigray uu awoodiisii wiiqo oo hoos u dhigo ma suuragali doonto Tigrayna taa uu ka gaashaantay wuxuu ka xigaa inuu Itoobiya kala diro marka inuu khilaafkii sii weynaado baa haduu ilaahay yiraahdaan ka filayna wax kale wanaag ka filayna ma jiro dalka waxa ay ku soo rogeen mudaha tanbil laga joogo kooxda TPLF xukun degdeg ah ama marshal law wax la yiraahdo رئيس الوزراء هاتن عصب صورة قلمة هي إن حكم كاسي ولالو ودبلو سعريها هنانك عادي جاها ما دام إنه أكسرنا هي حكم كدقدق عادي بعد تفرق بدن إنه كررته وهاتن أنت وشريبة ضد توانكم كبدن لحد حلاي ضد بدن أي قحين أو بركعين أو أي حتى حدودها كان يأكل كتلابين لنا على السودان قار كتلابين لبعضه أي مرة مركز بيساسي بدن صورة قلمة هي إن حكم كاس لالو دبنا لو سو عليو هنانكي عادي اها iyo xasilooni hadii aan kala hadlo xukunkan degdeg ee saaran muxuu ahaa wadanka ma dhici doonto horta in si sahlan lagu qaado sababtoo ah waxaan jirin kalsooni fara badan yaani jirin Abay Ahmedna ma awoodi kar hada inuu durba qaado muxuu ahaa marshal lowga wadanka lagu soo rogay sababtoo waxa weeye hadii uu soo wadankii kalsooni fara badan laga haysanin waxa ay dalbanayaan markan ka hadalay iyo rabitaanka dadku waxa weeye in la qaado durba muxuu marshal lowgan sidoo kale waxaan arkayay daraado kale odayaal dhaqameedka Oromada inay dalbanayeen in laga qaado marshal lowgan laakiin ma dhici doonto awoodna uma yeelan doono inuu durba xaliyo sababtoo ah waxa weeye ninkan hadii uu meesha yimid hadda waxa la gudboon laba mid ah in uu yeelo waxa ay ugu yeerayaan kooxdan hadda awoodda dhan ee wadanka haysatay ee TPLF saayel haye haduu yiraahdo waa okay haduu uu diido laakiin marshal low ma waxaan ka sababtoo shaqadii kale ee la rabay in uu xaq u lahaa in lagu wareejiyo yuusan haysaninba mar hadii shaqadii qaybna lagu dhiibo qaybna laga reebto ma had marshal low reeb qaadi kartaa ma qaadi kartid waa in horta markii awoodiyo buuxda lagu siiyo kadib yaa la dhihi karaa hebel barnaamijka uu talaabada soo qaadi kara marka sida daraadeed
ninkan ra'iisul wasaare qalalan buu hadda hayaa ilaa iyo hadda intaan ognahay mana heli doono muxuu ahaa inuu noqdo labada xil ee kale uu qabto sida caadiga lagu yaqaan dastuurka Itoobiya uu qorayo marka haddii uu taaba hayninba wax uu qaadi karaa ma jiro waan gartay qoomiyadaha ahmaarada iyo oromada sida inta badan aynu warbaahinta kala soconno ama siyaasiyiintoodu ay sheegayaan ama afkaarta dadka caadiga ah ee labadaasi bulshada ka soo jeeda haatan waxa u dhaxeeya isbahaysi ama isxulafaysi labadaas qoomiyadood dhexmar muxuu ka dhigan yahay horta waxaa jira hal dhibaato oo wada haysata marxaladda hadda lagu jiro qoomiyadda amxaarada iyo oromada iyo qoomiyadaha kaleba marka laga reebo qoomiyadda Tigreeya taa weeye tan midaynaysa horta marxaladda maanta lagu jiro iyo cadaadiska haysta labada qowmiyadood midaynaya haddana iyadoo ay saa tahay qoomiyadda amxaaradu istaraatiijiyadeedu waxa weeye inay mar walba iska hormariso qowmiyaddan xooga badan ee oromada inay daba taagnaato waxaa tusaale ku ah ninkii la sharaxnaa ra'iisul wasaare hadda la doortay Abiy Ahmed qowmiyadda amxaarada ayuu ka soo jeeday kalsooni badanna kumaysan qabin marka waqti badan baa la tashkiiliyay marka taasi waxay ku tusaysaa in ay wada shaqayn ay jirto qowmiyadda amxaaradu waxay u aragtaa in oromadu ay maanta wax bedeli karto isla markaana ay wax la qaybsan karaan taasi aaminsan yihiin marka mar walbaba danta maanta guud sida xaaladda maanta marxaladda ay ku jiraan looga bixilaan bay ka wada shaqaynayaan isbahaysi guud oo waxaa jira isna mucaarada ay wada leeyihiin nidaam dhisan oo caadi ah marka taas ayaa kalifaysa in ay wada shaqeeyaan macnaha marxaladda maanta lagu jiro awgeed waa gartay suuragal ma u tahay marka in iyada oo xaaladda aanay isbedelin oo dagaal uusan dhicin in si nabada ay maadaama ay labada qowmiyadood waxa Itoobiya la yiraahdo ugu badan ay yihiin in ay si nabada xukunka kaga wareejiyaan kooxda TPLF maya waxaa jirtay hadal hore oo soo jeediyay markay kacnoodaan bilaabanayeen oo waliba qolyahan reer galbeedka ay ku dhex jireen ninka la yiraahdo ninka taliyay ciidamada ahaa ee hore isoo qaba magaciisa ninkaas yaa hadda kor ugu hadlay wuxuu yiri Itoobiya cid anaga nooga dambayso oo hayn doonto xukumi doonta ma jirto marka waxay ku tusaysaa halka ay ka taagan yihiin mowqifaan ama anaga haynayna xukumayna ama Itoobiya kala dirayna cid xukun anaga nooga dambaynaysa ma dhici doonto marka waxaad moodaa inay tii ka dhabaynayaan oo mar walba ay ku soo celinayaan baad moodaa marka waa la arki doonaa marxaladdu inay ka sii darto oo muxuu ay si waxay sameeyeen ma dhici doonto marnaba horta isfahan iyo muxuu nidaam caadi ah oo nidaamkan hadda ay dalbanayaan qowmiyadan oromada iyo ama dadkan waxa ay rabaan caadiga ee xaqiiqda ah marka laga tago ma dhici doonto si sahlan inay ku dhacdo taas la aaminsanaa marka la fiiriyo Itoobiya waxa haatan gacanta ku haya waa ciidan meesha dooniba ha joogtay gaar ahaan gobolka Soomaalida bal hadda markii la fiiriyo dhulka Soomaalida maxaad is leedahay ra'iisul wasaarahan cusub ee ku yimid sida muuqataba qorshe ka madax banaankii TPLF uu ka bedeli karaa saraakiishii iyo waliba maamulkii meesha ay ka sameysteen iyo habdhaqankooda waxaan filayaa su'aashaasi waa lacala haddii ay dhacdo isbedel caadi ah kooxdan cusub ee iman doonta iyo si isla jaan qaadi kara deegaanka runtii waxaan aaminsanahay maamulka hadda deegaanka ee jooga Soomaalida waxay u arkaan inuu ninkan Abiy uu ku yahay qatar fara badan inuu ku hayo mana doonayaan sababtoo waxaad arkaysay mudaharaad ka dhacay magaalada Jigjiga sidoo kale kulamo uu la yeeshay saraakiishiisa hore oo soo saaya jiray oo qarsooday ilaa hadda wax ka soo baxaysa lama hayo sidoo kale waxaa jirtay odayaal dhaqameed oo u dirsaday Abiy Ahmed inay heshiisiyaan ninka la yiraahdo Cabdi Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Abiy Ahmed iyaguna dib ku soo goobeen oo kaliya waxa lagu yiri anigu hadda wax xiloon haya ma jirto laakiin haddii aad ka hadlaysaan xaaladda deegaanka diiwaan idin kala shaqayn doona haddii la yiraahdo sidii bay ku soo laabtay marka cabsi fara badan ay ka qabaan way jirtaa runtii systemka dambe cusub iman doona xitaa de wuxuu raaci doonaa on de hadda deegaanka maamulka deegaanka ka jira wuxuu raaci doonaa TPLF sababtoo ah de waa isku group mar walbana dad isla shaqaynayay ahaayeen marka iyagana meesha way ka bixi doonaa marka cidda dambe cusub ee deegaanka iman doonta iyo qoladan waxaan aaminsanahay kulli in isla qabsan doonaan haddii uu yimaado way isbedel qoladan keenaan waa gartay danta gaarka ee ka dhaxaysa Soomaalida iyo Tigreega maxay tahay horta marka tiraado danta gaarka Soomaali ma macnaha kooxdan Soomaalida ee maamusha deegaanka hadda xoog ku haysata danta ka waxa weeye waa dan kooxeed bas macnaha dan umadeed iyo dan deegaan midna ma dhahayno laakiin waa dan kooxeed markaan dan kooxeed ku leeyahay hadda xisbigan hadda meesha ku magacaaban ee la shaqeynaya Tigreey damudooyinkii u dambeeyay way isfahmeen oo in badan bay soo wada shaqeynayeen ilaa hadda 10 sano iyo 12 sano meelahaas ay soo wada shaqeynayaan marka de xisbigan iyo kooxdan meesha joogta
waxay ilaalinayeen mar walba danta iyo rabitaanka kooxda TPLF na mar walba waxa dan u ah kooxda marka danteeda ilaalinaysa marka ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degan iyo Tigray wax dan oo gooni ah ka dhaxaysay ma jiro laakiin kooxda Soomaalida iyo muxuu ahaay Tigray oo dan ka dhaxaysay waa jirtay tiina si fiican bay ugu socotay haddana isbedel guud iyo cadaadis guud baa wada haysta oo ay ka wada walbahaarsan yihiin labadooduba ay isku simka yihiin walaba isku soo saameynaya waan gartay madaxa maamulka jigjiga sida horeyba adigu aad uga shanqarisay wuxuu ku sugnaa magaalada Addis Ababa haddana kama soo muuqanin shaashadaha tii casha sharafta tii dhaarinta iyo waliba goobihii kale ee ay ku kulmayeen madaxda cusub ee Itoobiya iyo baarlamaankii iyo meeshii adigu halbowlaha ahayd ee wax ka socdeen dhammaan horjoogayaashii kale ee kililada Itoobiyana way joogeen arrinta maxaa loo fasiran karaa way iska cadahay marka hore waan hormariyay sababtoo waxa jiray xilligii uu isku dhacayeen Abiy Ahmed iyo kooxdan TPLF oo soo ka soo barbaaray nidaam ahaan xilli Addis Ababa isku arkeen isu hanjabeen baa jiray waa shakhsi ahaan labadooda ay isu hanjabeen marka mar walbana fikir ahaan way kala duwan yihiin waayo kana wuxuu wali rabaa rabitaankeeda iyo systemkeeda TPLF kana waa nin ka tagay oo kacdoonadii ku beeray hadda ka horna nidaamkii dhexdiisii isku qoraaseen isugu dhaceen isugu dhaarteen isna wuu sheegay sida wararka ay ugu soo gaariyeen oo wuxuu yiri hadii aan chance ku helo nin muxuu ahaay iftiin dambe dib u arki doona ma tiid marka cabsida iyo isfahan la'aantii hore ee soo martay awadeed buu horta u tagilayahay kulamada noocaas oo kala waana qatarta koobaad ee uu arka hadda ayaan cabdi wax kale oo hadda awood kale uu ku celin karo ma jiro hadii Itoobiyada kale ay ku qancaan iyo macala Tigrayga mar walba cabdi wuxuu noqon doonaa nin meesha ka baxa oo waliba la kulma cadaadis kala kulma noqon doona waan gartay iska horimaadyo waxaa jiray u dhaxeeyay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Oromada ee deegaan wadaagta ah qorshe siyaasadeed buu ahaa inta badan saraakiisha ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa dabada ka horinayay maxaad is leedahay dhibaatadii labada bulsho uu ka dhex abuuray hanaanka TPLF uu ka bedeli karaa shakhsigan cusub ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada xaqiiqatan marka la yiraahdo isaga oo markaan ka hadlayno markii xilligii kacdoonka uu socday Abay iyo asxaabtiisa kale Oromada ay kamid ahaayeen waxaad xasuusataa isku dhac labada shacab aha kooxdan TPLF marba waxay rabeen inay Jaanisku ka faa'iideystaan balse furay uu shaqeyn waay oo laba gacan ba kala gaadhay san filayo labadii gacan waxay ka dambeeyay qoladan way hadleen oo Oromada oo siyaasiyiintooda in Soomaalidu aysan cadow ku ahayn dadkoodii waa u sheegeen amarkiina way qaateen already oo way wax dambe oo dhacay ma jirin ilaa iyo hadda labada qayboodba waxay soo arkaan dad walaalo oo diris ah oo wax dhibaato aysan oolin wixii hore ee soo dhacayna inay ka dambeeyeen kooxdan dhagar qabayaasha ee TPLF marka taasi u aaminsan yihiin marka wixii hadda ka dambeeya marka ila system horay ugu dayeen buu ahaa uuna shaqeyn way marka kooxda TPLF inay farsamo kala la timaado oo ninkani baalasha ka rifaan ay caburiyaan mooyaan wax hadda shacabka dhexdiisa ay sameyn karaan oo kale ma jiro saasan qaba waan gartay marka la fiiriyo xaalada way haatan Itoobiya ku sugan tahay kooxda TPLF-na aynu ogsoonahay in taladii ciidanka Itoobiya ay gacanta ku hayso rasmiyan ay tahayba talada Itoobiya oo dhan cid gacanta ku haysa hadiiba ay u aragto khatar inay kaga imaanayso qowmiyadahan Oromada iyo Axmaarada isbahaysiga ka dhaxeeyay ee gaarka ah ee sida lama filaanka ku keenay Abiy Ahmed suuragal ma tahay in ay isku dayaan afgambi military oo ay talada dalka dib ugu wareegaan marka horta afgambi military wadanka hadda saaran yahay markaad maqasho marshal law xukunkan degdega waa xukun military horta macna wax kale oo shaqeynaya ma jiro Abiy Ahmed hadda awood ma laha sababta wadanka waxa saaran xukun military markii xukunka military la qaado buu horta iyo amarkiisa iyo nidaamkiisa shaqeyn kara hadii Abiy Ahmed uu noqdo nin u hoggaansan talada iyo hadalka u jilicsan muxuu ahaa hadalka TPLF waa laga yaabaa in uu noqdo laakiin lama qaadi doono wadanka sidoo hadda afgambi ugu jiraaba marka Abiy Ahmed wuxuu mari doonaa wadadii Xayla Maryam markuu u dareemo cadaadis fara badan iyo shaqo wanaagsan uu saqaban waayo uu arko nin loo yeerinaya markaa wuxuu noqon inuu sangareeyo oo ka tago mucaaradka caadi uga biro hawsha halkeedii oo ay ka sii socoto saamay noqon laakiin yani isku day afgambi military oo toos hadda kuma dhaqaaqi doonaan ay koodan ay ku shaqeysanayaan wado kanaba saaranba marba hadii uu xukunku uu saaran yahay wax marshal loo leeyahay waa xukun military sideedaba military-ga ma shaqeysanaya waxa ayad kale oo sharciyada shaqeynaya ma jirto kan hadda saaran baadiyay ku sii cadaadinayaan ninkan marka hadii uu u noqdo nin dabacsan oo u dhagan nugul haduu noqdana waa sidii rabeen iyagu
laakiin waxaan ogsoonahay qoomiyadda oromadu saraakiil badan oo ciidan ayay ku leedahay saraakiisha ciidamada Itoobiya generaal badan baa jira oo oromo ah oo xilal kala duwan oo waliba sarahaya wada shaqeyn saraakiisha ciidanka dhexdooda ah iyada oo ra'iisul wasaarihii uu maqaar saar noqday suuragal say ku tahay miyaysan soo dadajin karin in ciidamada dhexdooda ay isku dhacaan way soo dadajin kartaa sababtoo ah markii xaaladdu hadda sidan waxay talaabada dambe ay xigtay waxay noqon doontaa in ciidamadii ay beela u sii kala go'aan laakiin haddii ay noqoto lafteedu ciidan marka la yiraahdo de laftooda si kala awood badan qaybaha si kala awood badan hadda qaybtan mukhadaraadka ama sirdoonka oo kale de cidda gacanta ku haysa waa loo yahay waa hal qoomiyada ciidamada cirka oo kale iyaduna de hal qoomiyada gacanta ku haysa waxa kale soo raacaya waa hubkan culus de taangiyada iyo de muxuu qaybtan madaafiicda intooda badan waxa gacanta ku haya muxuu ahay halka qoys marka waxa kale soo raaca waa ciidamada afantriga waxa qaadan karaan waa wax yar macnaha oo ciidamada hadii aad maqasho nin sargaal oo oromo ah oo meel jooga ama qoomiyadaha kale ah waa on sargaal qaybtan ka tirsan afantriga caadiga ah aan ahayn ciidamadan de cirka aan ahayn ciidamadan kale ee madaafiicda way ka sii taxadareen nimankan in badan bay ku soo waxaynayeen waana waxa kaliya ee waqtigan soo gaarsiiyayba ama mar hore loo dhameyn lahaa waan gartay guud ahaan xaaladda Itoobiya ifafaala noocee ah ayaa ka soo muuqda marka dhinac kasta laga fiiriyo qaabka ay haatan wax u socdaan is-aaminaad la'aanta ururka EPRDF ee talada dalka soo hayay kala shaki saraakiisha ciidamada qudhooda ku dhex jira Abiy Ahmed oo aan ku qanacsanayn TPLF-ta Abiy Ahmed naftirkiisa oo aan TPLF-ta ku qanacsanayn oo u arka koox dalkii xoog ku haysatay bal si guud sawirka Itoobiya ka soo muuqda ama ifafaalaha lixda bilood ee ugu soo foorle ay wajihi kartaa muxuu yahay basleed hadda waxaan ognahay marxalad adag inuu wadanka hadda ku jiro marxaladan adag hadda uu ku jiro kama sayn doono inta qodob hadda aan soo sheegnay dhammaan ka soo sheekayn aawadeed aysan u shaqayn doonin in ay xaaladda ka sii darto walibana hadda way sahlan tahay waliba way is haysaa laakiin waxay noqon doontaa in ay qoomiyad kastaba ay muxuu ahay goonideed u dhaqaaqdo walibana hadda qoomiyadan Tigreega iyagu way ku tala galeen macnaha waa go'aan ay ku tala galeen macnaha qalabkii iyo muxuu ahay dhaqaalihii iyo hubka intii ugu fiicnayd oo dhan dhammaan waxay geysteen maqala tusaale ahaan hadda markii ay xirayaan qof siyaasi oo kale mucaarada hadda Addis Ababa lagu xir jiray hadda lagu xiro waxay geysanayaan meesha la yiraahdo maqala la geysanaya marka taasi waxay ku tusaysaa mar walbaba in ay waxoodii gadaal marsanayaan oo way arkaan xaaladdu inay ka sii darayso rabitaankoodan ay meesha ku haynin horeyna waxay u cadeeyeen hadii ay rabitaankooda meesha ka waayaan inay kala dirayaan marka inay ka sii darta mooyaan de wax hadda rajo ah oo ka soo muuqatay ma jirto waan gartay ugu dambeyntii shacabka Soomaalida ogaadeenaya isagu ahaa kii dhibaatada ugu badan uu ka soo gaaray taliska kooxda TPLF Itoobiya oo dhan aan aaminsanahay in aanay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka ogaadeenaya aanay Itoobiyaanimo u qirsanayn ama ayna u aqoonsanayn maxaa iyaga la gudboon xilligan kala guurka ah ee marxaladda qalafsan Itoobiya ay gashay rajana aan laga qabin in dib loo helo Itoobiya wada socota oo dawlad ah waxaan aaminsanahay shacabka Soomaalida ogaadeenaya ee Soomaalida meesha degan runtii cadaadiska guud iyo dhibaatada guud ee ummadda Itoobiya guud ahaan tadeeda wada qabto ka sokow haddana waxay lahayd cadaadis gooni ah oo aan ognahay walibana naxariis daran fursadda maanta jirta waxa kala guddigan waxa weeye in ay horta ka faa'iideystaan oo mar walba xaaladda intay la socdaan ay u diyaar garoobaan waqtiga maanta lagu jiro runtii marxaladda Itoobiya mar horta haday kala dhaqaaqdo iyagu daraf bay hadda soo jiraan markii la yiraahdo dhowr jaanis bay haystaan oo Itoobiyada gudaheeda inta uu ka socdo culayska faraha badan iyo iyagu de jaanis badan bay u tahay oo waayo meel yara koona ah ay ku soo jiraan oo cirifkii ah qoomiyada kale ugu soo xigto waa Oromo marka in xiriir fiican ay la yeeshaan qoomiyada Oromada sababtoo iyagu hadda waa niman la soo wada gubaystay nidaamka hadda jirana diidan oo raba inay meesha ka saaraan sida darteed in jaaniska noocaas ay kala faa'iideystaan oo siyaasad ahaan ay garab ku siiyaan waa wax muhiim ah maanta tan kale waxaan oran lahaa qoliyahan hadda siiyay dugsanaya wali muxuu ah TPLF inay nooshay aaminsan laftoodu in ay dadkooda caadiga ah shacabka intay kala mid noqdaan oo dantoodii istaagaan oo jaaniska laftooda ka faa'iideystaan yaa anigu yaan u arkaa marka labada qodob hadii ay sameeyaan diyaar garow fiican oo de mustaqbalka iyo hadii ay siyaasad la sameeyaan kooxdan rabta ee Oromadan oo rabta inay isbedel sameeyso oo hadda aan u arko inay tahay awoodda koobaad ee Itoobiya labada hadii la helo waxaan aaminsanahay fursadda ugu fiican inay ka ciyaari karaan haduu Ilaahay
akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku falanqeynaynay xaalada dalkaasi Itoobiya martina uu inoogu ahaa aqoon-yahan maxamed xuseen oo ah xeeldheere dhinaca istiraatiijiyadda militariga ah. intaasi ayaan ku soo afjaraynaa tan iyo barnaamijkan mid lamid ah intaan isugu imaanayno waa bahda Ilays TV oo iyagoo isku duwan idin leh fi amaan illah.